kuwii iimaan laga helay oo iimaankooda ka run sheegay intay adduunyada joogeen. walaalayaal adduun baynu noolahay ay ina mashquuliyeen teknolojiyadan cusubi. laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyawma alaakhira. walaalayaal rasuulullah sala allahu calayhi wasalam waxau leeyahay ka faa'iidaysa 5 ka hor intaanay ku imanin 5. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هنقطة قف ظروف إسنا وظروفتي كرقي قادتي إلى حير لأشيسة أي أقوين كل كارو تاسين الحقيقة سو وكوش أقوين وايو إلهي وحليه سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. روحي وحقو ليستي وليباني وtrue success كاري يا قفك يعني آخرين تلكينو نار لقد أقاتيو جننا حقي ذا أقاتيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري هذا هدي هاي تامر كيدي كوريسي هاد مقال كيغان أركيسان أبو جانا كيغين سو قاريو waxaan naxariisteen ka codsanayaan support gareysaan oo aad subscribe saartaan sidoo kalena aad igula wadaagtaan wixii tala ah ama wixii angafo qaybta commentiga. ilaahayna subxaanahu wa ta'aala waqtigiina ka dhigaad igu dhageysanaysaa waqti barakeysan. walaalayaal adduun baynu noolahay ay ina mashquuliyeen teknolojiyadan cusubi. adduun aynan dhadhaminayn macaankii iyo raaxadii waqtiga. adduun aynu mashquul ku nahay waxaynan garanayn resultiga inooga soo baxaya iyo waqtigeena lagu tago goorta bilaabmo iyo goorta dhammaado. yacni heedlessness inuu qofku yahay qof qaabil ah. ilaahayna qur'aanka waxa uu ku tilmaamayaa dadka waxa dhawaatay yacni xisaabintooda waqtiga la xisaabinayay iyagoo qaabiliin ah oo ku jira qabla. rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo ilaahay leeyahay laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha واليوم الآخرة. يعني الله سبحانه وتعالى حين يقول لي قرينيا نبي محمد نرشي سؤردن قيبي حن نرشي سؤردن هاتينا قطة قويسكي سلالة حاملية هاتينا قطة نرشي إياد دادكي سوشيال لايفكي سيدي لولا فالقلي هاتينا قطة حنانا انتي إيا كوبعنتي إيا كورنتي عرور نمو يعني عرور تصيلو إلى لها هاتينا قطة أمدي سيدي لولا دقمي لها نبي محمد نرشيسو أوردن waxay noogu sugan tusaale fiican sallallahu alayhi wasallam. uma baahnid inaad aniga ku dayatid, uma baahnid sidaan wax u qabsatid sababtoo ah aniga waxa laga yaabaa inay hal wado ii shaqayso adigana inay wadadaasi kuu shaqayn weydo. laakiin wadooyinku way fara badan yihiin lagu gaarayo guusha iyo hadafyada nolosha iyo himilooyinka iyo yacni kamar dhalinta guulaha aynu raadinayno. qof walba guushu waxay u tahay qof ay guushu waxay u tahay inuu miisaanka iska rido, qof ay guushiisu tahay inuu aqoon barto, qof ay guushiisu tahay inuu meel gaaro, qof ay guushiisu tahay inuu jaamacad dhameeyo. guushu qof meel bay u joogtaa. laakiin asa ummatu maxamed rasuulullah sallallahu alayhi wasallam waxaanu nahay ummad kaliya. ilaahayna quraanka waxa uu ku leeyahay innal mu'min yani ilaahay wuxuu leeyahay mu'miniintu waa walaalo meel walay joogaan. qof kastoo iimaan laga helay oo fi suurat xujraat bay ku jirtaa. qof kastoo meel kasta uu joogo qof intuu iimaan leeyahay oo ilaahay subxaana wa tacaala rumaysan yahay qofka kale walaalkii ah waa walaalkii iimaanka laga helay. iimaankii diintana ku walaaloobeen ee wanaajiya dhexdiina. walaalayaal rasuulullah sallallahu alayhi wasallam waxau leeyahay ka faa'iidaysa 5 ka hor intaanay ku imanin 5. dhalinyarnimadaada ka faa'iidayso ka hor gabowgaaga. qaninimadaada iyo taajirnimadaada ka faa'iidayso ka hor intaanan faqri kuga imanin. firaaqa iyo waqtigaad haysa jaaniskaad haysatay ka faa'iidayso intaanan mashquulin. sidoo kale ka faa'iidayso noloshaada ka hor intaanay kuga imanin geeridu. wajaa sakratu lmawti bilxaq. waxay yimid sakaraadkii oo xaqa geeridii oo dhaba. haddii ay ku timaado geeridu ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamayaa ma jirto yacni dib u dhigasho iyo in lagaa soo hormariyo
at the right time bay ku imanaysaa geeridu. sidaasna adduunka waad kaga tegaysaa. walaal ha ka daalin hadafyadaada, ha ka daalin himilooyinka iyo xaqiijinta guulahaaga, laakiin wala ridwaanullaahi akbar, ilaahay raalli ahaanshihiisa ayaa ugu weyn guul la gaadho. taas inaad xaqiijiso waa guusha ugu weyn, waayo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala faman zuxzixa cani innaari wa udkhila aljanna faqad faas. ruuxii waxa guulaystay oo liibaanay oo true success gaadhay, yaa qofka yacni aakhire inta la keeno naar laga dhaqaajiyo, jannana xaggeeda loo dhaqaajiyo. walaalayaal, miyaanay muruga inoogu filayn? miyaanay waantow iyo waano inoogu filnayn in ilaahay qur'aankiisa uu ku leeyahay ma jiro mid idinka mid ahay ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xasban maqdiya. aayadaadan khadanaysaha ilaahay aayad macnaheeda wuxuu leeyahay ma jiro mid idinka mid ahay ilaa naarta jahannama waa is arkayaan. yacni jidkii siraad ayaa ku dul yaala naarta jahannama, oo jahannama hoos ayaa loogu arooraya. wanacuudu billah. ilaahay wuxuu leeyahay thumma nunaji aladiina ittaqow wanadaru aldaalimiina fiiha jiziya. waan badbaadinaya baa ilaahay yidhi, yaa ilaahay badbaadinaya kuwii ilaahay ka cabsaday adduunkeedii joogeen, kuwii iimaan laga helay oo iimaankooda ka run sheegay intay adduunyada joogeen. wata loo dhahayo naxnu awliyaa'ukum fi lxayaati addunya wa fi laakhira. qofka iimaanka leh, qofka ilaahay ku kalsoon, qofka rabu samaawaati waalardi calimu alghaybi washahaada ku kalsoon ee rumeeyey, ee kitaabku u soo diray, uu soo dejiyey, uu rasuulullaahi maxamed usoo diray raacay jidkiisii, ilaahay waa badbaadinayaa. wanadaru aldaalimiina fiiha jaziya. daalimiintii, kuwii isla weynaaday, kuwii kibiray, kuwii adduunkaas doonayay yacni starska adduunka yacni sharaf iyo nobility wax raadinayay, kana raadinayay dadka indhahooda, ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay kuwaasi aakhiro nasiibkuma laha. walaalayaal, adduunyadu way kooban tahay, yar baynu joogaynaa, ma garanayno waqtigaynu ka tegayno. walaalkayga qaaliga ahow, walaashayay, anigu malihi aqoon aan kugu kordhiyo, malihi cilmi aan kaa badanahay, laakiin waxaan walaal kugu waaninayaa ilaahay kitaabkiisa casa wajal oo inoogu filan waana oo dhan. ilaahay wuxuu inagu dhiirigelinayaa inaynu helayno adduunkan yacni inta aynu u dadaalo in ka badan haddaynu nahay dadka ilaahay rumaysan, dadka mu'miniinta ah, dadka muslimiinta ah. ilaahay fi suurati najm waxa uu ku leeyahay waan laysa lilinsaanu ilaa maa sacaa. bini aadanku ma laha ilaa wixii uu dadaalo, uu ku tabco, uu dhidido, oo uu rafaado, oo uu qorsheeyo noloshiisa ayuu leeyahay. walaal, miyaanay aayadda ilaahay subxaanahu watacaala inoogu filnayn inaynu u dadaalno nolosheena adduunyo si aynu u qurxisano? miyaysan aayaddaasi inoogu filnayn cibro iyo dhiirigelin? qofka la yimaado hal wanaaggaasi wuxuu doona ha ahaado qofaad u dhoola cadaysay adigoo yacni si qalbiyana ugu dhoola cadaynaya, ha noqoto qof duruufaysnaa oo duruuftii kala qayb qaadatay, ha noqdo qof qalbigu jabnaa oo aad isku dayday at least inaad ka khafiifiso wax yar oo ka mid ah culaysyada noloshiisa soo wajahay, ha noqdo miskiina sadaqa siisay, wuxuu doona ha noqdo naftaada ilaalisay oo daryeeshay adigoo og inay tahay ammaano rabu samaawaati waalardi kuu dhiibtay. wanaaggaasi kuu soo noqonayo. aayad fi suurati najm ku noqda mar kale. ilaahay wuxuu leeyahay waxaa ilaahay u sugnaaday lahaanshaha dhulka iyo cirka. walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lard liyajziya aladiina asaa'uu bimaa camiluu wayajziya aladiina axsanuu bilxusna. bal aayaadka qur'aanka u fiirsan macaanidooda. walow aanan lahayn aqoontii aan ka fasiri lahaa kitaabka ilaahay, kitaab
كيم رب السماوات والأرض نزل به الروح الأمين إلهي وسودجي سبحانه وتعالى مركز أفير سميسو إلهي آيات كيسا إيمان باكو زيادة dadka ilaahay wuxuu xusayaa iimaan kale ee mu'miniinta ah marka aayaadka ilaahay dushooda lagu akhriyo ya zaadathum iimaana iimaan baa u kordha ilaahay bay xasuusiya aayaadka qur-aanka kawniga ah markaad eegaysa galabtii cadeediyo sii dhacaysa habeenkii isbedelaya maalinkii ya waxaad xasuusanaysaa aayaadka ilaahay leeyahay inna fii khalqi samaawaati wal-ard isbedelka habeenka iyo maalinta واختلاف الليل والنهار أبورك السماوات كي أرلدا اسبدلك هبينك إيما Allah is alternating يعني هبينكي مالنكي ويسكت بدري الله سبحانه وتعالى وآيات هذا لا يكون حسوسا نيسو مركا في سورة النجم إلهي وحليه هاي وحاو إلهي وسكنا هذا إلها شهر لولكا إيا عركا إيا وحي كل حسوكنا ولان أرنك وحكا لو ما هي إلهي وحكو أبال مارينيا ليجزي الذين أصاءوا بما عملوا كوا حما سمايا وحكو أبال مارينيا حما تأيسينيين كوا وناك سمايا وحكو أبال مارينيا يعني تقو وناك سمايا جناء عهدي كلا إلهي وقرآن كنك كلها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد jannada markaad gashaan ilaahay idin nimceeyo waxay leeyihiin dadkaa jannada galay wax kasta oo ay naftoodu doonto ilaahay wuxuu leeyahay weliba waladaynaa masiid iyo dheeraad ziyaada culamadu waxay ku fasireen ziyaadadaasi waxa weeyaan ilaa nadari wajhi raxmaan inaad aragtid allaha raxmaanka wajigiisa walaalkayow walaashayda qaaliga ahay ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryayaa culayska adduun iyo dhibkiisa inaan ku khafiifiyo waayo waxaan ogsoonahay marka arrinkaada yahay adduunku inaanu dhib lahayn yacni dhib la-aanaynin inaanu mushkilad la-aanaynin maalin kastaba mushkilad joogtaa especially hablaha waayo dumarkuusan ogsoonahay waqtiyo kala duwan ayay maraan waqti dhalinyarimay ku jirtaa way halgamaysaa hormooniska isu bedelaya oo wiig wax laga yaabaa inay cadadii birirkii ku dhaco haddana ay muddo qaata inay kasoo kabato waad garanaysaa xanuunka uu leeyahay waad garanaysaa saameynta iyo qofka wuxuu ku sameynayo yacni farxadiisa qofka heera ilaa ay gaadho inanto aysan awoodin inay xataa hadallada qaar si waafiya uga jawaabto intaa way halgamayaan intaa way dadaalayaan intaa waxay isku dayayaan daryeelka iyo ilaalinta qoyska ilaahay waxaan ka baryayaa inuu idinka abaalmariyo dadaalkaas waxaa laga yaabaa walaashayay inaad tahay hooyo walaacaysa ha noqoto waqtigii ugu horreysay amba ha noqoto waqtigeeda ka dambeeya oo dhani xanuunku wasta xanuunkii walwalku wasta walwalkii fikirka walaaca maxaa kuu dambeyn doonaa ma noolaan doontaa marxaladaas dhan rogaya run ahaantii waa dareen aanu nin ragixi يعني قياسي كريم لكن إله سبحانه وتعالى يسقى أيانا حاجة خصانين إله حليه إنني معكما أسمع وأرى ولا شيء آيات سمياني قلبي هاجيني قلبي سكو في الليل وحلقي يا بين الملتهي وهذا كسر بحدي مرحلة يودي حيسي جريدة ينواشا ومرحلة ذاك لكن أتكفر أحسن تهاي المعاص الله كبار ساقي بقول وين إلهنا حكبري سبحانه وتعالى إنه يدين كدقو وبد باريال وبد دينتن حمارة وبد آخر دين شفاعة قادة وبد الدين كانت كتم لسان آخرنا في الجنة إن شاء الله ولالكيو wanaagsoon hay
xaaladaha markaad tahay nin aad wajahaysid. wanaagsoonahay u diyaar garow mustaqbal, halgan iyo dhiiranaan kaaga baahan, nolol aan marka qaar kuu saacidin waxyaaba badan oo aad jeclaan lahayd inay kuu saacido. waan ogahay dhalinyaro marka la yahay marar fara badan waxaa kugu dhacaysaa caqabado dhaqaale, caqabado aqoon darro, caqabado lack of opportunity, a lot of things. wanaagsoonahay inay marka tahay inaad doonaysid inaad halgantid oo aad waajahdid kartidaada iyo karankaagana aad dunida tustid. walaalkayow, ilaahay wuu ogsoon yahay subxaanahu watacaala dadaalkaas, waxaana leeyahay inii laa udiicu camala caamilin minkum. aniga ma dayacayo camal uu qabtay qof camal qabanayo, yacni qof muslima camal qabanayo. walaal, dadaalka iyo halgankaad ku taagan tahay ha noqdo xaqiijinta wax kasta oo noloshaada ku muhiimsan, waxbarashadaada ha noqdo halkaada ku jirto maaraynta qoyskaaga, maaraynta dhaqaalahaaga marxaladihiisa kala duwan, maaraynta mustaqbalkaaga. waxaan kuu sheegayaa ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu la jirkooda yahay kuwa samra, waana jecel yahay. adduunkan waxaan ku helaynaa waa dadaal, waxayna ku helaynaa waa ficilkeena iyo in ilaahay subxaanahu watacaala u tala saarano go'aamada nolosheena. ilaahay sarreeya subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay wa axsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin. wanaagsanaada, ilaahay waxa uu jecel yahay kuwa wanaagsane. walaal, aqoontu inaad heshaa waqtigan la joogo ma adka. garaadkaaga iyo garashadaada iyo adduun araggaaga iyo muwaahibooyinka gudeed ee kugu jira waad xaqiijin kartaa. kuma lihid way fudud yihiin, kuma lihid wax kastaala waxay noqonayaan biririx markiiba, laakiin waxaan ku leeyahay wax kastaala waqti bay qaadanayaan. intaad danyarta tahay, haddii aad qoys haysatid, xaas haysatid, ilaahay ku barakeeyo. walaal, u dadaal mas-uuliyaadkooda, ku dadaal dadaalkan iyo tacabkan aad ku jirta sii labilaab. waxaanad ogsoonaataa man jaa bilxasana falahu cashru amhaaliha. qofka hal wanaag la yimaado alle waxa uu leeyahay qofkaasi 10 laabkii. ka waran dadaalkan, shaqadanaad ku kala haysid, culeyskanaad qaadaysid, gumaysigan booskeeda u adkaysanaysid, halgankanaad ku jirtid. you are struggling, but Allah knows subhanahu wa ta'ala what you have been going through. Allah knows everything. Nothing hidden from Allah subhanahu wa ta'ala. إلهي wuxuu leeyahay yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa an tukhfi suduur. siday wax uga qarsoomayaan. ilaahay wuxuu leeyahay isha wax khiyaamaysa, waqtiga ay wax khiyaamayso, sida ay wax u khiyaamayso, ilaahay waa la socdaa, wuu og yahay. iyo wamaa tukhfi suduur, laabaha waxa ku jira. hadday rabaan dad inay wax kugu sameeyaan, hadday rabaan inay horumarkaa u istaagaan, hadday rabaan inay ku lugooyaan, hadday rabaan inay ku khiyaamaan, hadday rabaan inay dhabarkaa jebiyaan, hadday rabaan inay ku liidaan, hoos ku dhigaan, kuma liidi karaan, kumana wax yeelayn karaan. rabu samaawaati wal ardi baad haysataa. you are strong enough inaad waxaan oo dhan halal garaysid. awood baad leedahay. walaalkayow, walaashayay, adduunyadan mid kastoo inaga midi wuxuu raadiyaa nobility, ciza, sharaf. wuxuu raadiyaa maamuus, wuxuu raadiyaa magac, wuxuu raadiyaa miiqaam sare in kor loo eego. dabcan waynu raadinaynaa, maalbad waynu raadinaynaa, laakiin waxaynu kusoo gebagabeynayaa 2 sir oo haddii aad dabaqdaan noloshiina oo dhan biidni alwaaxid alaxad ay hagaagayso adduunya aakhiraba.
تكوبات وحويان إناد بديسان استغفارته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله اللهم اغفر لي. يعني استغفار تبدي إلهي دم في ديسو. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إلهي سورة وحين كل شيء في آيات القرآن كا إلهي دم في ديسته ودم بدنا حيمني مركاد إلهي دم في ديسنا وحيمني بركات كل مرينا فريا السماوات والأرض لبضا dhulkii roob badan baa erigi ilaahay roob badan buu inaga soo deynayo dhulkiina nabaad aad u tiro badan ayaa ilaahay naga siinayo ilaahay mar kale waxa uu leeyahay walow istaqaamuu cala ariiqa la asqaynaahum maa'an qadaqa walow istaqaamuu cala ariiq yani hadday ku toosnaan lahaayeen haddii la heli lahaa insaankan straight uu yahay oo ku yahay jidka ilaahay subxaanahu watacaala straight ku yahay ku toosan yahay oo ku hanuunsan yahay ilaahay subxaanahu watacaala raali ahaanshihiisa inuu ilaahay raali geliyo ilaahay wuxuu yidhi waxaan waraabin lahaa roob dhibco waaweyn yacni barakaatu samaawaati walardi baan yacni u furi lahaa waayo ilaahay caza wajalla waxa uu leeyahay wafi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun samada risiqa iyo provision system waxyaabaan raadinayna aan doonayno aan baarayno kuma jiraan meel kale kuma jiraan shaqadaada kuma jiraan meesha tegaysid ma yaalaan waddankaad ku nooshahay waxay ka imanayaan samada ilaahay kitaabkiisa munazalkaa buu inoogu leeyahay alladii yudcimuni wayutqiin ilaaha iquudinay anigu xeelad iyo awood toona melihii aan isku qoodiyo aan biyo ku cabo ilaahay baa iquudinaya subxaanahu watacaala abilitygan iyo awooddan aan wax ku cabaya wax ku tiskaraynaya dhadhankii ku kala soocaya aan ka qaraar diidaya aan ka macaan doonaya aan ka urtiisu yara adag tahay diidaya ka urta macaan doonaya everything wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha haddaad isku daydaan in ilaahay subxaanahu watacaala nicamkiisa aad tirisaan ma soo koobi kartaan dhulka u fiirso وفي الأرض آيات للموقنين إلهي وكيات كمان كلها دولك آيات بأقصوهم دادك عقلي وصاحبك دادك سوجي دادك إلهي كفكرة يا دادك مخلوقات كونية إيجية مركا ولالكيو ولا شيء قدرك كواد حويا بديا استغفارتا مالنكي سميسو وردي جوكتا هنقضي انت بسيكو السعودي هنقضي انت جامعة عادسيد هنقضي انت maxay shaqada guriga qabanaysid ha noqdo intaad safraysid ha noqdo intaad meel u socotid ha noqdo intaad yara fadhigid ha noqdo intaad sii seexansid ka hor ha noqdo marka soo kacdid samayso ilaahay dikri maalinla ah oo sirri ah inaad la yeelato subxaanahu watacaala dembi dhaafna aad weydiisato talabaad baday salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam حديث نبي وكي أصحابي يعني قرنينه يعني فضلك إلا ذي قف إنه بديو يا رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي يقولون أنت قيب كديقة قيبتنا لا ما كنت منك الرسول كلا هذا دعالة لم بخلي يصل لك نبيكم حقود عليه الصلاة والسلام حديث سايا شو همي كاجا أدوم بحدوني سوى لوسيني دمي كاجا ولا دافي آخرنا مشكلتها هنا هايستها ودم بيدين الدون كنا مشكلتها هنا هايستها وأمورها إنه نفضل يعني زين حللنا هاي الكور هذا هذا سرت بتاعي إن تبدي صو صلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني هاي الرعجية يعني على الدون يا آخر وقولت قاريسو أقوى هذا دونيسو إلهي كعبسو دمنا بالله ويديسو وإلهي إلهي واتقوا الله ويعلمكم إلهي كعبسو سقايدن برايا إلهي أيا الله سبحانه وتعالى علمك علمك غيبية علمك أمدسية كنو أن كتب من أقوان تفربنا لهم بسيء كأينا كتب من أقوان دردنا
وجهل حقي سكذا حاطي إلهي وتيرين منه سبحانه وتعالى ودعاء رسولك واتيحي لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. إلهي سبحانه وتعالى هذه البركة يوم هذه ذلك سوى قاعدين هذه المحسدين تاغير دينا كما هذا علينيا وحنا نكرا ترتارميا لبدا ترى أدن بي إلهي سبحانه وتعالى دم في ويدي ستان وإلهي بدن حسطان سبحانه وتعالى إيو إنت بدسان صلى رسولك صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.